dhinacaan kalena ay dhaheen dhulbahante toban xildhibaan baan leenahay sidaan dawlad uga sugaayay waxay dhaheen dhulbahante tobanka xildhibaan buu rabaa Deni inuu qaato toban xildhibaan maxaa keenay 340 xildhibaan baa baarlamaanka la iska rabaa Deni marka uu rabo madaxweyne inuu noqdo ama 250 ama 240 tobankaaga xildhibaan xaguu ka qooyaa farti suulka ma gaarey marka weysada la sameysanayo waa suulka cididiisa iska qoyse waay akhlaaq yeesha Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faqiirka kibirka badan ilaahay uma naxariistaa liyir faqiirka kibirka badan Allahi abuurto uma dadka labada degma haysta oo kurdiga ah waa inay edab yeeshaan ilaahay baa dadkan majeerteeniye ka dhigay ilaahay baa saddex gobol oo isku xiran ka dhigay ilaahay baa labada badajiyay ilaahay baa labadii badood oo Soomaaliya iyaga ku makanaystay waxba kama qaadi kartid ninay ciileen baa caaya ama qayli ama orod maakhirna waxay dawlad ku noqon kartaa kabtan ayuu fiidiyoyaashiisa marka la soo qarxiyo sool barina waxay dawlad ku noqon kartaa markuu majeerteen caawiya halkaas ay idin soo dhig qofka hadlaa okay ana hadlaaya horta dhamaantiin khiyaare waa inay salaamay haddaan ka hadlo qadiyada khaatumo iyo maakhir iyo Puntland horta Puntland waa maamul ay ku bohoobeen beeraha harti ku midoobeen Puntland ma aha dawlad ka mid ah UN-ka waa state ku yaala gudaha Soomaaliya dawlad goboleed ka mid dawlad goboleed xubin ka ah dawladda federaalka Soomaaliya dastuurka Soomaaliya anigu waxaan ictiraafsanahay horta inuu dastuur qabiye yahay ansaxna ma aha gabigiisaba ansax ma aha goormo ansax noqonaya inuu dastuurka waan akhriyay dastuurku ansax noqonay sugura ansax dawlad Puntland kama sheekeynayno horta dhageyso dawlad Puntland dhageyso horta sud afsaamsukaada ka hadlay waxa anaga ma dastuurna kama sheekeynay horta dhageyso dastuurna kama sheekeynay dawlad Puntland kama sheekeynay dadkan kala cararaya dawladda Puntland waa la wada dhistay daaroodka degan shanta gobol iyo degmada wada dhistay majeerteena dadkaasi ka mid yihiin 98 baa wax la isku darsaday qofkii ka baxay iyo qofkii joogaya waxay u taalaa Puntland bay u taalaa way reerkan majeerteenka loo eriyeenaya su'aasha taas waay maxaa ka galay Puntland majeertug isugmuudka gal su'aashu ma aha dawladda Puntland su'aasha waxa weeye adiga 98 baa wax ku darsatay wiilka majeerteena 98 buu wax ku darsaday wiilkan majeerteen meel uma socdo calan ma wato Ahmed Food Cadaasaak wuxuu lahaa Xamso haddii aad wax noo tartid waxa calankaaga waxaan kugu xardhaynaa sawiradaada baan maartay baan ku xardhaynaa oo darbiyada maakhir baan kugu xardhaynaa nin isagii aan waxba noqon karin oo nin ku raali gelinaya saldanadii baa kugu xardhaysa darbiyada maakhir iyo wiil majeerteeno intuu saa u taagsado isaga isku xardhaya ba horta meesha ku gogoosanaya maxay ta dastuurkii waxa raadinaysa ninna nin buu rabaa inuu wax ku xardho ninna isaga raba inuu wax isku xardho af Soomaaliga fahan Puntland waa la wada leeyahay waa la wada dhistay qofkii ka baxay qofkii joogay isaga u taala kii saddex gobol degan isaga u taal kii laba degmo degan isaga u taal kii hal degmo degan isaga u taal Puntland lagama hadlaayo eraga laga hadlay waxay tahay dadka inay dad wax ku xardhaan maana iyaga aan waxba isku xardhi karin dadka aan waxba noqon karin in iyaga ay dad wax ka dhigaan maahane dadkaas laga hadlaa af Soomaaliga ma taqaanid maxaa anaga Puntland oo la dhex ordaysa saak okay anu mar kale taan kuugu celinayaa Aaminoy bal fursad isi inaan ku hadlo haddaad iga soo dhax gasho 2 saac baa qabsanaysaa ra'yigayga igu ixtiraam waxaan ku yiri Puntland waa la ka dhulbaanta urka warsanka way wada dhisteen dhaqan baa wada dhisay dhaqanka anaga xushmad iyo ixtiraam buu naga mudan yahay beerihii beel kamid ah haday baxdo ay tiraahdo waxa way Puntland baa sawla Puntland baan hay fiir walaal waxaan ku sheegayaa degmadana erayga waqooyi waan kaaga jawaabayaa waan kaaga jawaabayaa mawduuc doodaydan wataaye waan kaaga jawaabay aniga degmadaydu waa qardhe adiga degmadana noo sheeg xawla laabanaysa degmadaydu waa Boosaaso
boosaas degmadaada maaha waa magaalo madaxda ganacsiga Puntland waa la wada leeyahay degmadaada sheegina okay qardho maana magaalo ahay magaalo ganacsiga maaha waa degmo qaas dad qaas magaalo gobol Soomaaliya caasimad Soomaaliya degmadaada sheeg magaalada boosaas waa magaalo ganacsiga Puntland cidna degmo maaha dadka shantaraanta Puntland baa ku midaysan mid kale waxba khaladay waxa tiri Puntland hartiba iskale noo sheeg inta degmo harti lahayn oo Puntland ku taala maxay Puntland harti iska quseeyay sidoo dhinac noo dhaaf anaga dad qaylinay ma u baahan carab calalinay maxamuud qaado ee damcaan qaado محمود هولو قال انتي لك لقاطه وابا يابنها انا وابا يابنها waxa la yiri fiidiyoyaal kabtan ayuu ba aqoon si lagu yaabani warada ma yar ma la aamino waxa uu arkayay saaka iyadoo la wareejinayo fiidiyoyaal soo qarxinaya sheeka baradada TikTok lagu way kabtan ayuu ninka la yiraahdaa TikTok iyo Facebook buu iskaga tagay in siyaasi uu dalacayo madaxdu la sheekaystaa ma garat laakiin mid aan ugu ni sheegaya 10 jeerna waa inii sheegay calanka Puntland saddex diilmood aniga ay saaran wuxuu ka taagan yahay UB sanintana waa ka taagan yahay inta ka dhaxaysana dhul Puntland weey 1998 baa la asaas shalay hadii reer intay sax soo ka haysteen laascanood keeneen hadii laga saaray macnaheedu ma hayna dawlad yihiin cid aqoonsatayna ma jirto meel kasta inta la tagay mid ma xog soo garaacayna soo laabteen Puntland bay ku khasban yihiin ama Hargeysa ama Garowe labada mid laga xukumayaa Hargeysa dooranayaan iyaga u taalaana u khasbanayno laakiin meel kale la aaday ma jirto labada joys baa u banaan xildhibaanada laga sheekeeyo waxa la yiraahdaa xildhibaanada la rabaa farmaajo isagoo madaxweynaha Soomaaliya ah oo geeda ka jaray Jubbaland oo intuu ciidamada geeyay yiri halkaas ay gaar u taagnaanaysa Axmedow baa sharciyad ma haysto ceel qalo waa lagu soo doortay 16 xildhibaan Mareexaan Axmedow baan soo doortay sharci baa adduunka wax lagu meel mariyaa waxna ku socdaan maamul aan sharci ahayn reer intii calan meel ka taagtaan dawladda ugu noqonayo shanta gobol iyo degmadaasi waa Puntland hadda maalinta la kala baxo xildhibaanadoodu ka baxaan Puntland madaxweynahooda ka haystaan wasiiradooda ka haystaan agaasimaashooda halka la tagaan xad loo kala sameeyo Puntland iyo ma ay khaatumo maalintaas u aqoonsadaan madax Soomaaliya oo aqoonsato maamul goboleed beesha caalamkana u aqoonsato maamul goboleed maalintaas maamul goboleed noqonaya inta ka horeysa waa la iska mudaharaadi karaa wadan aan mucaarad lahayn ma jiro Puntland waa state ka weyn dhowr wadan oo adduunka ku yaallay ka weyn tahay oo la isku dardaray marka Puntland habar meelaha waalan oo xiiran oo dhuxul shidaysay oday waalan oo murqaansan iyo midda wax laga weydiinayo dadka shalay dhistay baa wada jooga aniga xaq eeguma leh qof halka intuu soo fulo dhulbaanta inuu yiraahdo Puntland kama mid ah dadana kamid ah mid kala kamid ah kii shalay ila saxiixday dad ku ka baxayso oo wax maqaaxil iskaga baxaya tahay in adeerkan ila joogaan oo horgolma yaqaan madaxdaydii baan u aqaan shalay Puntland oo dhistay maanta ila joogo marka ma la yacni inta la iska daayo xaqida lagu soo dhawaado balaadir xagee loo marayaa xamar dawladda Soomaaliya aan taageersanahay ma khristeey xamar bay hoos tagtaa xamar Hargeysa waa hoos tagtaa cid caasimadii Soomaaliya laakiin dawladdu kama jirto hadaa dawlad sameeynaysan oo leeyahay waddanka centralism baan ka dhiganaa federalism ka soo horjeednaa dawladda sameeya shalay markaan sumeyn dhaxgaad jirtay marka walaal ma la yacni iyo meeshan waxaan misqaala darati aan lagu hadlo waxa ka qurux badan dadka runta in loo sheego anigu waxaan ku yiraahdaa qof kasta halka doodaya dood sharci aan ku doodaya in aad meelo doodaysaan ay iyo aflagaado iyo bariyo culus iyo buqlaan iyo waxaasna dawlad lagu ma noqdo shalay baan arkaynay baran wixii ka dhacay inta arwaayigi lagu laayay waxa la leeyahay bariyo culus dadana ka dhifanay waxaasna waa cuqdad reer laga qabo mushirtiin la yiraahdo waliba Maxamuud Salaamaan baa dadka qalbada jibiyay ilma reer oo bal Quraan isku akhriya Maxamuud Salaamaan wax kale oo inaarada garan maayo waan soo dhigay